wararka naga soo gaaraya waddanka Koonfur Afrika ayaa sheegaya in ugu yaraan ay dhinteen inta imika la og yahay 450 qof halkay barakaceen kumanaan qof oo kale kadib markii daadad xooggan ay saameyn ku yeesheen dadweynaha ku nool deegaanada hoos yimaada gobolka KwaZulu-Natal oo ku yaala dhanka koonfur bari ee dalka Koonfur Afrika. daadadka oo ahaa kuwa xooggan ayaa sababay burburka gabi ahaan in ka badan 4,000 oo guri iyo dhimashada 100 qof waxaana gabi ahaanba la la'yahay in ka badan 60 qof oo aan weli la ogeyn meel ay ku sugan yihiin iyadoo burburka baahsan laga dareemayo guud ahaan deegaanada ay roobabka iyo daadadku ay saameeyeen. dhismayaasha burbura ayaa waxaa ka mid ah in ka badan 500 oo iskuul iyo isbitaallo dhowr ah oo ku yaala deegaanada ay sida ba'an u saameeyeen daadadku. shaqaalaha caafimaadka iyo kuwa gurmadka degdega ayaa warbaahinta u sheegay in tirada dhimashada ay ka sii badnaan karto inta iminka la og yahay. hogaamiyaasha xisbiyada siyaasadda mas'uuliyiinta gobolka iyo madaxweynaha waddanka Koonfur Afrika ayaa dhammaantood xusay in dalka Koonfur Afrika uu wajahayo xaalad adag oo u baahan bayraadin gurmad degdeg ah. dowladda waddanka Koonfur Afrika ayaa ballan qaaday inay dhexda u xiran doonto dhismaha deegaanada burburay iyo weliba taageeridda dadka ay daadadku saameeyeen. hay'adaha samafalka iyo kuwa gurmadka degdega ayaa iyaguna sheegay inay wadaan gurmad degdeg ah oo ay la gaarayaan deegaanadii ay daadadku saameeyeen. waxayna sidoo kale sheegeen in weli roobab xooggan ay ka da'ayaan magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan deegaanada ay sida ba'an daadadku u saameeyeen. wixii warar oo ku soo kordha hadba xaaladdu sida noqoto haddii ay bid waxaad kula socon doontaan barnaamijyadeena iyo wararkeena dambe oo ila socodsiinaya anigu Maxamed Saciid Saxaaf intaanu ku kulmayno barnaamijkiisa xig waxaanu kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.